لتفتحنا القسطنطينية ولنعمل الأمير أميرها ولنعمل جيش ذلك الجيش. حديث كاس أو معنيه سيهي قسطنطينية واد فرندونتان أو آد فرندونتان وحانا نمعائي خير ننهلي أمير كي فرتئي عيدا كأوه قامينيو مالين كستا حديث كاس أيو كدو الأخرياء هذا ما أنت وحنو كهذينا قصدي أما تاريخ دي محمد الفاتح كسو دوادا مقال كينا. محمد الفاتح wuxuu dhashay 20 Abriil 1429 miilaadiga oo waafaqsan 26 Rajab 833 hijrada. aabihii wuxuu ahaa amiirkii muslimiinta oo ahaa mid kamid ah amiiradii dawladda Cusmaaniyiinta. aabihii si uu u tababaro wiilkiisa wuxuu u qabtay culimo aad u cilmi badan iyo Allah ka cabsi badan si ay ugu tarbiyadeeyaan diinta islaamka iyo jihaadka. macallimiintiisii waxaa ka mid ahaa Sheekh Aqsamuddin. sheekhu wiilka yar markuu cashirka u dhigo ayuu maalin walba kaxeeyaa wuxuuna mariyaa xilliga xeebta. markaas ayuu sheeda ka tusaa magaalada Qusطنطينية oo waxoogaa laga arkayo. markaasuu ku yidhaahdaa ma arkaysaa magaalada halkaas ka muuqata waxaa lagu soo dari doonaa dawladda islaamka. wuxuu yiri rasuulku naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee lituftaxna alqusطنطينية walinacmal amiri amiriha walinacmal jeysh dhalika aljeysh. xadiiskaas oo macnihiisu yahay Qusطنطينية waad furan doontaan oo aad furan doontaan waxaana nimco iyo khayr oo dhan helay amiirkii furta iyo ciidanka uu hogaaminayo. waxaa maskaxdiisii ku duubantay arintaas habeen walba uu ku riyoon jiray kii uu dhiigu daadanayo. haddaba wiilkan yar wuxuu aaminay inuu isaga yahay cidda furanaysa Qusطنطينية. aabihii wuxuu u kaxayn jiray wiilkiisa inuu jihaadka baro si uu u noqdo amiir dhammaystiran oo ummadda muslimiinta xukunka ugu maamulo si cadaalada. isagoo yar ayuu ku soo barbaaray cilmiga iyo taatikada dagaalka. waxaana ku dhashay magaalada Adriina oo xilligaas ahayd caasimadii dawladdii Cusmaaniyiinta. waa sultaankii 7aad qoyska reer Cusmaan. wiil aad u garaad badan uu ahaa luqado dhowrana uu bartay waxaana ka mid ahaa Giriiga, Carabiga, Farisiga, Laatiiniga. aabihii xilka wuxuu uga digay isagoo da'diisu marayso 14 sano oo kaliya. dawladihii gaaladana waxay rabeen inay ku soo dhawaadaan dhulkii islaamka. mid walibana wuxuu rabay inuu dhul ka qaato dawladda islaamka. waxayna arkeen wiilkan yar ee xilka haysta aad ayayna u yareysteen wayna ku soo duuleen. waxaa la sheegaa inuu isugu yeeray dadkii aqliga u saaxiibka ahaa khibradda aqoonta. markaas wuxuu kala tashaday sidii mushkiladaha ay u xalin lahaayeen. markaas liis dheer ayay ku qoreen mushkiladihii jiray xilligaas. markaas aad ayuu uga fikray. wuxuu arkay in mushkilad walba sidii loo xalin lahaa ay waqti dheer qaadanayso. wuxuu arkay in hal mushkilad dil hagaajiyo in waxaan oo dhan la hagaajinayo. mushkiladaasna waxay ahayd Qusطنطينية. markaas ciidamadii muslimiinta ahaa ayuu aad u tababaray. tababarkii ugu dambeeyay uu siiyay nin ka soo jeeda wadanka Hungary oo la yiraahdo Erban. waxaanu u soo bandhigay Maxamed al-Fatix inuu muslimiinta hubkii ugu casrisanaa u sameeyo waanu ka aqbalay. amiirka Maxamed wuxuu bilaabay inuu isku dabarido oo uu dhaqaajiyo midda siyaasadeed iyo midda ciidanba. wuxuu bilaabay markiiba inuu ciidanka awoodda saaro oo tababarkii ugu dambeeyay siiyo hubkii noocii ugu dambeeyay waqtigaana ama xilligaana wuu ku qalabeeyay. kadibna markii uu ka soo dhamaaday ciidanka wuxuu wada hadal la yeeshay ninkii xilligaas xukumay Qusطنطينية oo uu ka dalbaday inuu si nabadgelyo ah ugu soo gacan geliyo. laakiinse boqorkii Qusطنطينية arrintaas aad buu u diiday wuxuuna codsiga ku tilmaamay waxaana marnaba suuragal ahayn
kadib maxamed wuxuu yidhi odhaah cajiiba, laba mid unbay noqon, in Qustaantiiniya aan carsh ku yeesho ama inaan qabri ku yeesho. taariikhdu markay ahayd 6 Abriil 1453 miilaadiga oo ku aadan 29 Rabiicul Awwal 853 hijriga, Suldaan Maxamed waxa uu u dhaqaajiyey dhinacaasii Qustaantiiniya oo ahayd meelihii dowladda Kiristaanka iyo gaalada oo dhan kaga soo duulayeen Islaamka. waxa uu dhanka dhulka kaga go'dooniyey ciidan lagu qiyaaso 250,000 oo dagaalyahan oo muslimiina. dhinaca baddana wuxuu kaga go'dooniyey 420 maraakiib dagaala. waxaa la sheegay inuu ciidankiisa ku yidhi, waxaa laga yaabaa inaad noqotaan kuwii uu Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee afkiisa ku ammaanay. dadaal badan iyo dagaal aad u dheer wuxuu furtay Suldaan Maxamed. taariikhdu markay ahayd 2 Jamaadul Awwal 857 hijriga oo waafaqsan 29 May 1453 miilaadiga. dhinacaas ayuuna ku xaqiiqoobay magaca Faatix oo ah furte. waxaa la sheegaa dagaalkaasi inuu socday 51 maalmood, dagaal adag oo naf iyo maalba labada dhinacba kaga lumeen. ugu dambeyntiina Suldaan Maxamed wuu ku guuleystay furashadii Qustaantiiniya. inuu furtana wuxuu kaga farxad badnaa inuu ku xaqiiqoobay xadiiskii rasuulka, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. ciidankiisiina uu ku bishaareeyey inay yihiin kuwii ku xaqiiqoobay xadiiskii rasuulka, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. intuu faraskiisii ka soo degay ayuu Allah u mahadceliyey. waxaana lagu og yahay dadka muslimiinta inay markay guul gaadhaan Rabbi u mahadnaqaan. waxaanu dhintay Suldaan Maxamed isagoo gaaladii cabsi aad u weyn ku reebay oo Rooma wadnaha farta ku hayso. markuu dhintayna wuxuu saarnaa faraskiisa oo jihaad u jeeda. taariikhdu markay ahayd 4 Rabiicul Awwal 868 hijriga oo waafaqsan 3 May 1481 miilaadiga, waxaanu u geeriyooday sun uu siiyey dhakhtarkiisii u gaarka ahaa Yacquub Baasha. waxaanu ninkaasi ahaa nin ka soo jeeda Firenze ee dhulka Talyaaniga, isagoo matalayay inuu yahay nin muslima oo taqi ah si uu u soo dhawaysto suldaanku. Allahu naxariista Maxamed al-Faatix. muslimiinta taariikh weyn ayuu ku leeyahay. walaal haddaad muuqaalkeesha like saar, sidoo kale channelka maqal cusub subscribe saar si aad ula socotid barnaamijyada soo gelino. mahadsanid.